واتاي مرر qaarkood in la isfahmaa aad ay muhiim u tahay in la isfahmi waayna dhibaato far badan ayaa ka dhacdo inkastoo ummadda Soomaaliyeed ay isku af tahay laakiin qof walba lahjad ayuu leeyahay oo ku hadlaa waxa laga yaabaa laba qofood oo Soomaali ah isku luqad ah inay midka kale ay isfahmi waayaan hadda koor gaari ka baxay Baydhabo waxa uu sii jeeday Hargeysa dhankaasi dadka saaran waxay u badnaayeen dad reer Baydhabo ah ninka darawalka wadana wuxuu ahaa nin reer Hargeysa ah gaarigii soo u socday dadkii saarnaa rakaabka qaar kamid ahaa oo saarnaa darawalka agtiisa ayaa waxa uu yiri gaariga irooji macnaha meeshii la rabay waa uu soo gaaray markaas wuxuu yiri gaariga irooji markaas ninkan wuxuu u fahmay gaariga xawaarihiis wuu yareeyay gaariga xooji amal geerkay labo ayuu ku waday saddex ayuu ka dhigay markaas wuxuu yiri rooji bay ka erey rooji markaas wuxuu u badashtay geerkay afarka markaas rooji bay ka rooji markaas wuxuu dhahay ari waxaad leedahay ma garanaay gaariga soo jeedid cagaha baadho kugu qaaday ariya naga aamu rooji soo dhahay ninkan gaarigii waa uu gadoomay waa taqaanaa gaari hadoo gadoomo oo nin walba meeshii uu ku dhashtay ama meel laga garanay hadoo joogo waxa imaanaya dad caawiyo dadkii waa imaaday dadkii marka waxa laga qorayaa si dadkooda loogu gudbiyo idaacadaha imaado qofka walba qabiilkiisa iyo magaciisa saddexan iyo meeshuu ka imaaday aliyeernay ninka darawalka xaq camal jiifa laba nin oo mintaqana oo agtiisa fadhisay xaq camal jiifa markaas ninkii wax qoray imaaday markaas waxa la yiri adiga magaca markaas wuxuu yiri hebel markaas waxa la yiri yaa tahay raxweyn yaa ka tahay 8 ah ayuu dhahno mid kale la weydiiyay markaas waxa la yiri yaa tahay magaca Allah markaas wuxuu yiri hebel ahay okay yaa tahay raxweyn yaa ka tahay 9 ninkii darawalka xaqam ku jiifo ark labadii oo 8 iyo 9 kala sheegtay xaqu filimkaas wuxuu yiri kulli waxaan baa kala qaybsanaya 8 iyo 9 numberka isku yareynina ari aniga darawalka baa hadaba la socday 14 baa 14 wuxuu u maleeyay ninkii inuu kala qaybsanayo marka isbaabmaaga saas waaye aqyaarta waxa idin leeyahay hadii aad ku cusubtahay channelka subscribe saar si ay ku soo garo waxyaabaha dambana fura calaamada gabreelka aad u mahadsantahay